رئيسل وزراha xilgaarsiinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Switzerland. Ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay inay maanta oo kale 25 bisha ay ahayd maalintii dalka la isku dayay in inqilaab la geliyay iyo muddo kororsi. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu falaadha ku leexiyay Injineer Maxamed Xuseen Rooble, taasoo uu yidhi wax walba sameynaya ama sidoo kale inqilaabka iyo waxyaabaha dalka ka dhacay waxaa ku lug leh madaxweynaha. Isagoo hadal sarbeeban u diray madaxweynaha dalka Soomaaliya ayuu sheegay in waxay wax ka socon laayeen isaga yihiin. Dhanka kale ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ajaanib iyo dad dana gaar ah leh Soomaaliya ay u diidan yihiin nolol iyo inay horusocod samayso, balse ummadda Soomaaliyeed ducadeeda uu dalka ku socdo. Dhanka kale ra'iisul wasaaraha ayaa u rajeeyay maalinta beriya iyo sidoo kale maalinta Arbacada guddoonka baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka ee la kala dooran doono haddii ay ka soo baxaan dad wanaagsan inay Soomaaliya noqon doonto mid hore u socota, balse haddii ay ka soo baxaan dad madaxweynaha taladooda bas qaata iyo meeshii loo jeeyay ayna noqon doonin dad dalka wax ka bedela. Ra'iisul wasaaraha ayaa u rajeeyay guddoonka la dooran doono inay noqdaan kuwo ka hufan dhammaan waxyaabaha dalka dib u ridi kara. Sidoo kale guddoonka beri la dooran kara ayuu sheegay inuu dhammaan saddexda nin oo sharaxan uu la soo wada shaqeeyay wanaagna uu ka filayo midkii ku soo baxa. Dhanka kale ra'iisul wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa yidhi ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay duco inay garbaha isqabsato midnimana samayso. Ra'iisul wasaaraha hadal dardaaran jaaliyadda u soo jeediyay ayaa kula dardaarmay inay iscaawiyaan xilli lagu jiro abaaro xun kuwaasoo dalka iyo dadka looga baahan yahay inay garab istaag u muujiyaan jaaliyaddu. Dhanka kale ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Soomaaliya dana waaweyn laga leeyahay balse ay ku socoto ducada shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaare Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa u rajeeyay haddii ay soo baxaan guddoonka baarlamaanka dadka loo baahan yahay Soomaaliya inay noqon doonto mid barwaaqo sooran waxna laga bedeli karo. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay haddii ay ka leexdaan wadadii loo baahnaa in dalka meeshii uu ka yimaaday meel ka fog uu ku laaban doono.